daawayaasha telefishinkana kaalintiina barnaamijkan waxaad kaga soo qayb gashaan taleefanada idinka muuqda shaashadaha iyo goobaha kale ee aad barnaamijka ka daawanaysaan idinkoo su-aalihiinana ku salaynaya hadba qodobada uu ka hadlayo dhakhtarka barnaamijka martida inoogu ahay barnaamijka caawa idil ahaantii waxaynu kaga hadli doonaa oo inta xaaladan xumadda ee dalka ka jirta lagu jiraba barnaamijyadeena caafimaadka ee telefishinka qaranka iyo idaacadda radio Hargeysa waa ay u badnaan doonaan kuwa bulshada lagaga wacyigelinayo xaaladda xumadda inta aynaan toos u gudagelin barnaamijka ee aanan idiin magacaabin martida barnaamijka waxaan jeclahay sidii caadadaynoo ahayd in aynu ducaysano intii inaga baxday ee geeriyootay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo inta xanuunsanaysa ee cisbitaalada guryaha iyo goobaha kala jiiftana ilaahay caafimaad sareecana ha siiyo inteena caafimaad qabtana allaha u siyaadiye aynu xasuusnaano nimcada uu eebe inagu galaday inaynu ka mahad celino inagoo gudanayna waajibaadka uu ilaahay inagu adoonsaday sidoo kalena nimcada caafimaadka ee qaaliga ah kaga shaqaynayna waxyaalaha wanaagsan inta haddii aynu kaga gudubno bulshadu inteeda badani waxay daawadayaal ku baraarugsan tahay in muddooyinkii ugu dambeeyey dalka Somaliland ay ka jirtay xumad aad u daran taasi oo tiro dadina ay u dhinteen in badanna gaarsiisay xaalad adag waqti xaadirkana wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland iyo guud ahaan shaqaalaha caafimaadka mid gaara iyo mid dawladeedba ay ku foogan yihiin sidii xaaladan loola tacaali lahaa ama ugu sii badnaadaan goobaha caafimaadka ee ay dawladdu maamusheen xumadani sida ay culimada caafimaadku sheegayaan adduunka oo dhan uu isku raacsan yahay inta ugu badan waxa ay ku faafaysaa kaneecada la nool ibni aadamka qaar ka mid ah ama nooc ka mid ah oo inta ay qofka xanuunsanaya qaniinto dabadeetana qofkii caafimaadka qabay sida ugu gudbinaysa arrimaha ku duugan xumadan dalka ka jirta waxaa ka mid ah dadka ay asiibayso inay ugu sii daran yihiinba da'da dhalinyarta ee u dhaxaysa 12 jir ilaa 30 jir isla markaana la odhan karo waa kuwa ay xaaladda ugu daran gaarsiinayso ama mararka qaar ay dili karaysaba sidoo kale hooyada uurka leh iyo hooyooyinka umulaha ah iyo ubadka aadka u yaryar ee sanadka ka yar ayaa iyaguna xaaladda xumadan ay khatar gelin kartaa barnaamijka waxaa marti iigu ah Dr. Faadumo Xaashi Iimaan oo ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland gaar ahaana isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ama isbitaalka qaranka iyada oo si gaarana uga mid ah saraakiisha ugu sarreysa ee qaybta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka Faadumo ku soo dhawow barnaamijka caafimaadka wandhawahay watan barnaamijku waa barnaamijka inta badan dhakhaatiirta halkan bulshada talada kula wadaagtaad ka mid tahay sidoo kale dadka barnaamijka laftiisa talooyinka siiya ayaad ka mid tahay waan kaaga mahad celinayaa sidoo kale waxaan kaaga mahad celinayaa in aad tahay qof had iyo jeer iyadoo aad u mashquulsan haddana marka barnaamijyada caafimaadka ee wasaaradda warfaafintu ay la xidhiidhaan halkan bulshada inay talo uga gudbiso sida ugu dhow ugu fiican oo aqbasha sidee Faadumo ayaan carabka ku dhuftay adigu isbitaalkii guud baaba joogtaayo kolley hooyooyinkii iyo ubadkii iyana waad ka dhowdahay waanad ka warhaysaa xaaladda caafimaad iyo xumadda waddanka ka jirta inta aynaan aqoon ahaan bulshada u guud marin waxyaalihii keenayay iyo dhibaatooyinkeedii kale bal horta waxaad nooga warantaa aniga iyo bulshadaba waxaanu quudareynayn ama hoos u dhac yimaado ama xaaladdu aanay halkii ka durkina sidee wax yihiin wax ma isbedeleen mise bahasha way nagu qasaysaa wallaahi batuunow haddaynu runta ku hadallo anigu ma arkayo wax isdhimay way soo badanaysaa aad bay u sarreysaa maxaa yidhi dadka isbitaalka guud anagu waxaan nahay isbitaal referal oo waddanka oo dhan la iskaga loo soo gudbinayo marka aad iyo aad buu isbitaalku u buuxaa sad ka warhaysaan xitaa heer waxaa la gaaday geedaha hoostooda xitaa dadkii kuwii ladnaa markay sariirihii buuxsameen loogu gargaarayo marka waa arrin aad u adag weeye waana masii badanaysaa un maayo laakiin wase inagu soo gashuun bay ku taagan tahay waxba isma bedelin wax kordhay mooyaan bal waxaad Faadumoy inkastoo adiga iyo dhakhaatiirta kale ee wasaaradda iyo guud ahaan bahda caafimaadku ay bulshada in badan la wadaageen siday u gudbayso iyo bahashan taariikhdeeda iyo waxeeda bal mar labaad noo dumar cudurkan haddaan horta kaaga sheekeeyo waa cudur waxa keena virus marka dank baa la yidhaha marka waa 4 nooc weeyaan daankaasi
marka mid hadduu kugu dhaco kaa waxaad yeelanaysaa ka bax oo jirkaagii waxaa samaysmaysa difaac buu yeelanayaa laakiin nooc kale oo saddexdaa ka mid hadduu kugu dhaco dhibaatadiisu way badan tahay waxa ka sahlan qofka aanu ku dhicin marka badida idhagay nagu dhici jiray wuxuu ku dhici jiray wadanadan saxaaraha ka hooseeya ku leedahay subtropicalka basab saxaarahaasi oo ay ka mid yihiin Asiaticada ay u badan yihiin sida Thailand iyo waxaas iyo India iyo Latin America iyo wadannadaas ku badnaa inaga waxa weeyaan cimilada isbedeshay baa walida kor haddaan research aynaan samaynin oo wixii noo keenay aynaan garanayn cudurkaas waa cudur inoo yimid oo aan wali nagu dhici jirin hadduu dhici jirayna wuxuu aadaanka yaro cudur yaro khafiif u ahaan jiray laakiin kan dhiigbaxa keenaya cudur inaga awli nagu badnaa mu ahayn marka waxaan u maleynayaa dadkeena imika meel kastay tageen special India aad u tagaan in iyagoo cudurkii qabeynta yimaadeen kaneecadeenina dabeetana suntii ay cabtay oo dabeetana dadkii u kala qaaday dabeetana cudurkii sidaa inoogu faafay Faadumo arrimaha la yaab kale waxa kamid ah kaneecada noocan kamid ah ee gudbinaya xanuunku markuu qofka buka qaniino qofkii caafimaadka qabayna uu qaniino u kala qaadaysa waxa la isku raacsan yahay ama cilmi baaris laga sameeyay wadamada ay baasha ku badan tahay xumadan ay marka horena aadka ugu badnayd dhakhaatiirtooda iyo bahda caafimaadku ay sameeyeen la sheegay in xilliyada ay wax qaniinto ay aroortii iyo galabtii u badan tahay ma la garan karayaa sababta markaan kaaga maya kulli dhakhtarkana de waan hayaa maxaa hayay xogtiisa dhalinyaro aad u fara badan ayaa ku eelatay ama ku dhimatay cudurka inta ka kacaysaana si adag bay uga kacaysaa oo diiftiisi kasii muuqanaysa hooyadii uurka lahayd waxaa la leeyahay iyadii oo keliya haddii aanay xataa kuba dhimanin ma gaadhsiinayo khatare ilmihii uurka ku jiray laftiisii ayaa halis ku jira oo hooyadiiba madheertii uga gudbin karta baa la leeyahay arrintaa bal ka waran waxa weeyaan in hooyada uu ku dhacayaa waxay siyaalaha la isku qaadsiyaa horta waxa weeyaan waa kaneecada laakiin marka kaliya teen kaneeca la'aan la isku gudbin kara waa hooyada oo kale ilmaheeda u gudbinaysa marka ilmaheeda u gudbiso waxa dhacaysa ama wuxuu ku keenaya inay dhiciso ama wuxuu ku keenay ilmihii kori waayo ama wuxuu ku keenay ilmihii dhintaba marka maxaa hayday ilmaha khatar buu ku yahay waxaad arkaysaa qofkii weynaa waa khatar ku noqonaya ilmo yarna khatar weyn buu ku leeyahay wallaahi aniga dumarka ii yimaada wax yar mooyaane badidoodu maxaa hayday dhicis badan bay leeyihiin iyo waxay leeyihiin caruurta oo kasoo daadanaysa ay leeyihiin waa markaa waa bilihee intee hooyada matalan dhiciska khatarta ugu jirta ama markaa 3 bilood ka horeeya ku jirta marka wax lagu daraa goorma u badan horta hadaynaan waxa lagu dagaal kala waxa weeyaan marka research inta samayso atraada intaasoo dumara ayay igaga dhacay 3 bilood oo hore laakiin waxa loo yimaada qaar 3 bilood oo hore oo dhicinaya waxa loo yimaada qaar maxaa hayday dhalaya laakiin horta khatarta aadka ugu weyn waxa weeyaan oo markay dhalaan iyo markay dhalayaan waxa markay dhalaan ayuu dhiigbax keenaya fara badan marka waxa dilaya gabadha waxa weey waa dhiigbax fara badan buu keenaya oo aan la joojin karin iminka 2 habeen ka hor gabadh aad u daayiray ilmihii koobaad wax laga murugooda markay dhashay si fiican bay u dhashay xumadu waanu ka jabinay laakiin markii ay dhashay kadib dhiigii baa la joojin kari waayay 12 qarbad baanu ku shubnay kadibna intay hagaagtay oo aan nagacno waxaanu bilownay 8 habeenimo aanu galay yeelay dhakhaatiir kale ku jirtay ilaa 4 habeenimo la joogay inta waxaan isku daynay inaanu badbaadi kari weynay marka waxa weeyaan maaha keligeed laakiin dad badan dumar badan ay arrintaas ku dhacaysa ilmihii ku dhashay hooyadii uurkii ka soo qaaday isaga ka waran markaa xaaladiisu ay noqonaysaa ilmihii laba uu kala baxaya mid cudurkii buu qabaa haday qaarkood oo waxa weeyaan viruskii uu dhaafay muxuu ahaa bal madheerteedu ilmihii buu tago ilmihii cudur buu ku dhalanaya taasoo dhimasho keeni karta laakiin hadduu mar hore ku dhacay wuxuu immunity ama difaaci ayaa dhaafaya marka sanadka koowaad waxa laga yaabaa ilmahaas inuu difaaci haysto oo aan wax dhibaato ah la kulmin laakiin ilmahaas wuxuu ka sii khatarsan yahay haddii nooc kale oo kamid ah ama iyadiiba ay ku dhacdo danka noocyadii kale ay ku dhacaan waa sidii qofku ku dhacay cudurkaasi oo khatartiisa badan isagana way
ma la garan karayaa ama ma la isku dayay inaa cilmi baaris xataa ay ka sameeyeen wadamada kale ay ku fara badan yihiin ay ka sameeyeen sababtan uu u jilcinayo dadkii aan inta badan cudurradu qofka markay ku dhacaan waxaa had iyo jeer xaaladda uu qofkaasi la kulmayo inta badan lagu saleeyaa qofkani miyuu lahaa xanuuno waaweyn sida macaan dhiigkar sida adugula sheegtay laakiin dhalinyartii qaybtii ugu xooganayd bulshada ee caafimaadka qabtay sababtan uu xaaladda adag u gelinayo maxaa loo malaynaya cidina waxba uma malaynayso waa cudurku wuu cusub yahay wuu kugu dul dhacaya waxaa dhici karta iminka dadka qaar oo naga dhintay iyadoo wadnahayaan oo dhan kelyahoogu wanaagsan yihiin beerkeygu wanaagsan yahay dhiiggeygu aanu saa usii badnayn ayuunbuu markaaba wuxuu ku keenayaa qaarkood sanbabada ku dhufanayaa biyo ka buuxinayaa dabeetana qofkii halkaa ku dhimanaya biyo markay ka buuxsanaan waxyaalaha u badan ee la isleeyahay way dilayaana waxa weeyaan de cudurkii ma naqaana sida loo daweeye moogtahay marka iyaduna dhibteeduna waxa weeyaan inagoon u lahayn experience badan se loo daweynayo moogtahay markuu qofkii ku sameeyo wax acute ah sida looga saaraya haddaanad aqoon badan lahayn oo qof weyn aanad ahayn way adag tahay faadumo waxaa jira dad badan inta ku dhacday aan lagu qancin inay cisbitaal u baahan yihiin asliyan waa sidee sida ugu habboon ilaa imika inta loo yahay ee loola tacaalaya anigu waxaan u haystaa ana ila tahay dadka dhimanaya waa dadka lala daaho dadka yani aqalada lagu hayo iyo dadka batuno sidaad og tahay haddaynaan iska indhatiraynin caafimaadku somaliland wuxuu u galay gacanta dad aan ehel u ahay waxa weeyaan adduunyada waad aragto farmasiyaanku ninka farmasi lama furo ilaa farmasiyaan jira mooyaane farmasiyaanka ninka dawooyinka yaqaanaa dawo ma qori karo yacni qof dawo kuma mudi karo innagana waxa weeyaan qof aan weligiiba aqoon caafimaad lahayn ayaa intuu farmasi furtay dadkii dawo ku mudaya marka waxyaalaha ugu badan ee imika dhibta keenay waxay tahay dadkiioo mismanagement si qalada maarayn qaldan lagu sameeyey oo maaraynta qaldan maxaa ka mid ah maadaama aanay dadku aqoonteedii lahayn oonay dhakhaatiir ahayn ay iska yihiin dadkan badida dadka traditionalka ah ee kuwa doodaya iyagoon aqoon caafimaad lahayn inay dawo dhaqameed weliba ku doodaya dawladda kula doodaya kuwaasoo midhabaa dadkii maxaad u malaynaysaa heer waxay gaadheen ay dadkii de ay gebigoogiiba kaxaysteen marka kuwaasoo kale markay gacanta ku dhigaan qofkii markaa waa la daahinayaa moogtahay oo waxa la siinayaa maxaa waxaanu u baahnayn deeta qofkii isagoo lasoo buskudiyey oo aanad waxba qaban karaynin ayaa dhakhtarka lagugu keenayaa dee markaa waxba lagama qaban karo marka waxyaalaha ugu faraha badan ee imika anigu aanu haysta inay dhibta tahay waxay ka dhigan tahay dadku waxay tegayaan meel aan u helahayn caafimaadka dabeetana iyagoo khalaasa ayay imanayaan taasi waa mid ta kale aan ka hadlayan jeclaynan ka hadlay waxa weyaan dawada tayada dawada waxa weyaan paracetamol oo keliyata ayaa dawada lagu daweynayo paracetamolka waddanka taala inteeda badani quality male yacni male kama jebinayso xumadii marka waxa weeyaan taana waxaa loo baahan yahay inay wasaaradda caafimaadka iyo dawladdu ay quality-ga maxaa hayday dawooyinka in kor loo soo qaado ayaa iyaduna maxaa hayday meesha ku jirta ta kale iyadana meesha ku jirta waxa weyaan dadka laftigoodu imika anigu wasaaradda caafimaadka waan joogaa dhakhtarkana waan joogaa intaa waa la hadlayaa dadka waxbaa loo sheegayaa bat laakiin dadka kuma dhegaysanayaan toodii bay wataan anu dadkana waxaa loola lahaa wax dhegaysta maxaa hayday maqla maxaa hayday dawladdiina intaa hadlaysa waxa dhakhtarka imika Hargeysa 24 saaco dhakhaatiirtu way taagan yihiin qofna ma taga xaafadiisa anigu habeenkan ugu horeeyo tobanka ka taga aroortiisana soo galo intaasi dadku waxay heegan u yihiin because mar walba dhibaato jirta ambulance kuma kala joogsanayo marka haddii dadkii ay la daahaan dee dhibteeday leedahay oo iyaguna gacanta ku hayaa ta kale iyadana dhibtay noo keenaysaa waxay tahay cudurkan cudur inagu dhici jiray maaha jidhkeenu ma yaqaano soo markaa waxa weeye waa inay yaroo Maraykan joogtaa hadday timaado Hargeysa ama ay malaria ku dhacdo kama kacayso marka jidhkeegu ma yaqaano waa sidaas oo kale inagu cudurkan maynaan aqoon imika inoogu cusub yahay jidhkeeni ma yaqaano
marka sidii noo dilayay iyo sida kale ma garanayno iyo halkuu inaga abaarayo marka afartaa xaalo oo la isku daray inaynu hagaajinaa wanaagsan si aynu uga hortagno cudurkan isaga ah dawooyinka bulshada khataraha gelinaya ee weliba xaaladan xumada lagula tacaalayo waxaa jira kiniino haddaad tiin bahda caafimaadka aada uga digtaan in qofka xumadan ay haysan la siiyo maxay yihiin waxa weeyaan wax alliya wixii xanuun biyo ah oo maxaa ahayday kuwan la yidhaahdo moogtahay maxaa ahayday anti inflammatory non steroid lama siin karo magacaabo waa kuwa waxa weeyaan diclofenac waxa weeye ibuprofen iyo wixii lamida groupkooda waxa kaloo iyaguna ka mid ah cortisoniska lama siin karo wax alliya wixii maxaa ahayday noocaasa lama siin karo cortisonisku waa maxay cortisonisku iyaduna waa dawo la isticmaalo anti pain waa dawo aada u wanaagsan laakiin waxyaalaha qaarkood ayaa loo isticmaalaa marka taana dadka badidooda xanuunka isticmaalaa waxa kaloo iyadana jira aspirinka ka mid ah aspirinka iyada haddii imanka annaga naagaha uurka lahoo kale hadday dhiikar leeyihiin badida aspirin baan u bilownaa qaar adduunyada kale hebarin oo kasii weyn baa la siiyaa xinjirowgaa laga ilaaliyaa marka taasoo kale waa inaad markaaba ka joojisaa marka xumadii ku dhacday waxaa kamid a noocyo kamid a antibioticada waayo cudurkani wuxuu weerarayaa organadoo dhan wuxuu weerarayaa beerka wuxuu weerarayaa maxaa hidi kelyaha marka kelyihii iyo beerkii oo daciif ah haddaad adiguna antibiotic xoog la siiso iyaduna khatarteeday leedahay marka waxa weeyaan managementka sida loo maaraynayo waa in la raacaa protocolka dawladdu ay soo saartay oo qofna aan u raacin protocol kale waayo markii laisku keenay protocollo fara badan oo weliba aynu qaadanay kuwii Africa ayaa waxaa lasoo saaray protocol oo maxaa hayday lagu daweynayo dadka kii baan la raacay waa habraac kii la raaco weeye kii la raaco weeye haddii kaa la raaco waxaan u malaynaya inaynu in badan badbaadi lahay way hadday kuu timaado hooyo iyadoo ama nabar ku dhacay ama xanuuno kale dawooyin kala duwan oo kuwanaad sheegaysa qaar ka mid ah ama qaar ku dhadhow oo shaqadii qabanayeen wax lamida qabanaya marka hore si saxa uu dhakhtar ugu qoray iyadoo aanay xumadu hayn hase ahaatee iyadoo dawooyinkii qaadato xumadii ay ku dhacday maxaa la yeelaya ma kuwii horaa la joojinayaa see wax la odhanaya waa la joojinaya wix alli wixii dhiigga fududaynaya wixii dhiigga khafiifinoo dhawaala waa la joojinayaa batuuna waad ka war haysaan because dhakhaatiir waaweyn oo badan ayaa iga horreysay aniga oo waaweyn oo ka hadlay cudurkan si fiican uga hadlay sida askar baa ka hadlay waxaa ka hadlay waxaa kaloo hadlay doctor cabdiraxmaan xaaji waxaa ka hadlay saynab cali warsame iyo qaar fara badan oo kale oo dhakhaatiir waaweyna marka kolley kuma celinayno laakiin haddaynu yar dul marno waxa weeyaan